warbixin ay qortay wakaaladda wararka Anadolu ee ku hadasha afka dawladda Turkiga ayaa looga sheekeeyay isubaynta ay wadaan wadamada Carabta iyo wax laga filan karo sanadkan bilowday iminka ee 2019 waxaana ciwaan looga dhigay isubaynta ay wadaan wadamada Carabta ee waalida ah ma yaraan doonta. dawladaha Carabta ayaa muddo sanado ah kaalimaha hore kaga jiray wadamada soo iibsada hubka ee caalamka qaybihiisa kala duwan. qidaacaas isaga ah ayaana kaalin weyn ku lahaa miisaanka ay wax ku eegaan dawladaha ka jira mandiqada bariga dhexe ha ahaadaan dawlado yaryar ama kuwa waaweyn intaba. iibsiga hubkaas faraha badan ee dawladaha Carabta ayaa la sheegay inay sabab u ahaayeen azamada dhowr ah oo isxigay kuwaas oo ka dhacay mandiqadan. sidoo kalena wuxuu ahamiyad gaar ah u lahaa dhaqaalaha dawladaha soo saara hubka iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay gacanta ku hayaan dawladaha ugu awoodda badan leh caalamka sida Mareykanka, Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo sidoo kale kaga faa'iideysanayay mawaaqif siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed iyagoo ugu hanjabaya dawladaha ka jira mandiqadan inay ka hor istaagi doonaan iibsiga hubka. inkastoo aan la haynin bayaanaad rasmi ah oo muujinaya hubka ay soo iibsadeen wadamada Carabta, haddana dadka sida gaarka ah ula socda arrimahan ayaa sheegay in 15 sano ee la soo dhaafay ay dawladaha ku yaala mandiqada bariga dhexe hub ku soo iibsadeen qarash gaaraya $1 trilyan oo dollar. lamarkaas oo ah mid aad u ballaaran marka loo fiiriyo mandiqada bariga dhexe oo ah mid aan lahayn shirkado wax soo saar inta badan adeegyada asaasiga ah ka soo dhoofsada wadamada dibadda. dawladda Sacuudiga ayaa la sheegay inay kaalinta hore kaga jirto dawladaha caalamka ee hubka ugu badan iibsada, sidoo kalena waxay lambarka koowaad ka tahay dawladaha mandiqada kuwaas oo ay warbixintu wax ku dhisatay hadday tahay sare u kaca ama hoos u dhaca ku yimid soo iibsiga hubka ee sanadadii tagay. warbixinta ayaa ka qalin daaran doonta heerka uu gaarsiisan yahay qarashaadka ay dawladaha Carabta qorsheynayaan in sanadkan 2019 ay ku bixiyaan arrimaha militariga iyadoo barbar dhigi doonta qarashaadkii ku baxay sanadadii tagay, waxayna isdultaag ku samayn doontaa arrimaha siyaasadeed iyo kuwa ganacsi ee arrintan saameynta ku yeeshay iyo dawladaha ugu waaweyn ee mandiqadan hubka u iibgeeya. sanadkii tagay ee 2018 ayaa martigeliyay azamo ballaaran oo ku aadan arrimaha xuquuqul insaanka taas oo ka dhalatay dagaalka ay dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadku kaga jiraan wadanka Yemen kaas oo ka dhan ah maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo lagu eedeeyay inay dhaqaale iyo mid ciidan ba ka helaan wadanka Iiraan oo kamid ah wadamada dhaca mandiqada bariga dhexe. tan iyo bishii Oktoobar waxa ay soo tareeyay cadaadiska dawliga ah ee saaran xukuumadda Riyaad kaas oo gaaray heerkii ugu sareeyay wuxuuna salka ku hayaa arrinta wadanka Yemen iyo dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay safaaradda ay dawladda Sacuudiga ku leedahay magaalada Istanbul oo ah caasimadda labaad ee wadanka Turkiga. qaar ka tirsan dawladaha reer galbeedka ayaana ku dhawaaqay inay joojiyaan hubkii ay dawladda Sacuudiga ka iibin jireen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dawladiisu ay kamid tahay dawladaha ugu badan ee hubka u iibgeeya wadanka Sacuudiga ayaa si aadaha isaga ilaaliyay in xukuumaddiisu ay go'aan cad ka qaadato arrinkan. inkastoo labada gole ee Senatka iyo Kongareeska ay cadaadis xooggan ku saareen, wuxuuna si cad u sheegay in lacago fara badan oo balaayiin dollar ah ay ka soo galaan hubka ay ka iibiyaan Sacuudiga haddii ay joojiyaan hantidaas ay u wareegi doonto wadamada loolanka kula jira sida Ruushka iyo Shiinaha. intii labada gole ee Kongareeska iyo Senatka ay ku dadaalayeen sidii cadaadis loo saari lahaa xukuumadda Riyaad loogana joojin lahaa hubka ay dawladda Mareykanka ka iibiso, ayay xukuumadda Riyaad sheegtay inay heshiisyo dhanka iibsiga hubka ah ay la saxiixan doonto xukuumadda Moscow haddii dawladaha Yurub iyo Mareykanka ay dhankaas cunaqabatayn ka saaraan. isku soo wada duub oo dhacdooyinkaas isxigxigay iyo dhaqdhaqaaqa mujtamaca dawliga ah ee ku aadan in la soo afjaro dagaalada ka holcaya wadamada Yemen iyo Suuriya ayaa rajo weyn laga qabaa inay qaboojiyaan saxmadda laga dareemayo suuqyada kala iibsiga hubka ee caalamka qaybihiisa kala duwan inta lagu guda jiro sanadkan 2019. sidoo kalena waxaa la rajeynayaa in dawladda Sacuudiga ay waqtigan wixii ka dambeeya xoog saari doonto diblomaasiyad qabowsi ay u soo noolayso qiimihii ay ku dhaxlahayd beesha caalamka ayna u faafin lahayd cilaaqaadka dhaqaale ee kala dhaxeeya adduunka intiisa kale. maamulka Sacuudiga ayaa rajo weyn ka qaba in marka la gaaro sanadka 2030 uu ka maarmo 50% hubkii ka soo iibsan jiray wadamada dibadda. sanadkii 2017 ayuuna samaystay shirkad hubka samaysa taasoo sanadkii tagay soo saartay 2% hubkii oo maamulka Al Sacuud ka soo iibsan jiray wadamada dibadda. 10 sano ee la soo dhaafay ay dawladda Sacuudiga 26% ku bixinaysay arrimaha militariga marka la fiiriyo dhaqaalaha guud ee ku baxa hay'adaha dawladda intooda kale. isku darka qarashka baxay 10 sano ayaana la sheegayaa inuu gaarayo $70 bilyan oo dollar sida ku cad xog aruurin la sameeyay sanadkii 2017. dhaqaalaha Sacuudiga ee ku baxa arrimaha militariga ayaa la sheegay inuu kaalinta saddexaad kaga jiro dhammaan dawladaha caalamka waxaana kaga horeeya oo kaliya Mareykanka iyo Shiinaha sida ku cad xog aruurin kale oo uu sameeyay macadka Stockholm ee ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada. marka laga soo tago arrimaha wadanka Sacuudiga waxaa dhinaca kale ka holcaya cunaqabatayntii ay dawladda Mareykanka ku soo rogtay wadanka Iiraan kadib markii bishii May ee sanadkii 2017 uu Trump ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee la saxiixay 2015. dawlado ka tirsan kuwa dhaca mandiqada bariga dhexe ayaa cunaqabatayntan si aad ah u doondoonayay ilaa waqtiganna xukuumadda Tehran waxay ku mashquulsan tahay sidii ay iskaga caabin lahayd hanjabaadaha kaga imaanaya Mareykanka una ilaashan lahayd taageerada ay ka heshay dawladaha Yurub iyadoo ka fogaanaysa tijaabinta gantaalada ridada dheer ee loo yaqaan ballistic. dawladda Cumaan oo iyana kamid ah dawladaha dhaca mandiqada Khaliijka ayaa lagu soo waramayaa in 26.3% ay miisaaniyadda dawladda ku bixisay arrimaha militariga intii lagu guda jiray sanadkii 2017. dawladaha Kuwait iyo Bahrain ayaa iyana arrimaha ciidanka ku
bixiyey boqolkiiba 12 miisaaniyadda dhaqaale ee dowladda, taas oo ka dhigan in dowladdiiba ay 16.9 bilyan oo dollar ku bixisay qalabaynta ciidanka, inkastoo ciidanka dowladahaasi aysan jirin wax colaad ah oo ay kaga jiraan gudaha waddanka iyo dibaddiisa oo ay si toos ah u wajahayaan. dowladaha Qatar iyo Imaaraadka ayaa la rumaysan yahay inaysan wax sida ah ka qarasharayn maamulka Al Sacuud marka laga hadlayo qarashaadka ku baxa ciidanka, balse lama hayo xog rasmi ah oo arintooda ku aadan. Isku darka dhaqaalaha ee dowladaha kale ee Carabta ayaana kor u dhaafay 100 bilyan oo dollar sanadkii 2017 oo kaliya, qarashaadkaas oo ku baxay qalabaynta ciidanka, tababarkooda iyo qarashaadka ku baxay howlgallada ay sameynayaan. dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay tahay masdarka ugu weyn ee dowladaha mandiqada ay ka soo iibsadaan hubka, taas oo gacanta ku haysa wax ka badan 60% hubka soo gala wadamada bariga dhexe, waxaana ku soo xigta dowladda Ingiriiska oo 23% gacanta ku haysa. sidoo kalena waxaa jiro wadamo kale oo hubka ka soo iibsada Jarmalka, Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga, kuwaas oo dhammaantood nisbada hubka ay ka soo iibsadaan dowladahaasi aysan ka badnayn 15%. TV-ga CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa dhawaan baahiyey taqriir uu kaga hadlayay heshiisyadii hubka ee dhex maray Sacuudiga iyo Mareykanka, wuxuuna ka dhawaajiyey in xukuumadda Washington ay iminka gacanta ku haysato 14.5 bilyan oo dollar oo horudhac u ah heshiis ay labada dhinac kala saxiixdeen oo ku kacaya 110 bilyan oo dollar, kaas oo hub kala duwan loogu sameynayo waddanka Sacuudiga inta lagu guda jiro 10 sano ee soo socota. Khubarada dhanka siyaasadda iyo arrimaha militariga ayaa sheegaya in sanadka 2019 ay suurtagal tahay inuu gaabis ballaaran ku yimaado saxiixidda heshiisyo cusub oo dhanka hubka ah inta ay ka soo dhamaanayaan mawjadaha carada ah ee ka dhashay siyaasadaha dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, kuwaas oo sanadkii 2018 girgilay dhammaanba caalamka qaybihiisa kala duwan. dowladda Ciraaq iyo nidaamka Bishaar al-Asad ayaa la filayaa in sanadkan ay kordhiyaan qarashaadka ku baxaya dhanka ciidanka si ka duwan Sacuudiga iyo Imaaraadka, xilli xaalad nolol xumeed ay ka jirto wadamadan, dadkuna ay dalbanayaan in la soo nooleeyo adeegyadii asaasiga ahaa ee nolosha. xukuumadda Baghdad ayaa 5 sano ee la soo dhaafay arrimaha ciidanka ku bixinaysay qarash dhan 7.5 bilyan oo dollar sanadkiiba, taas oo isku darkeeda uu noqonayo 37.5 bilyan oo dollar. haddana waxay xusuuduub ugu jirtaa sidii ay u soo noolayn lahayd awooddii ciidanka militariga oo ay halakeeyeen dagaalo lagu hoobtay intii lagu guda jiray 4 sano ee la soo dhaafay. dowladda Ciraaq ayaa la sheegay in sanadadii la soo dhaafay qalab ciidan oo kala duwan ay ka soo iibsatay wadamo dhowr ah sida Ruushka, Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Czech Republic, kuwaas oo qarashaadkooda uu ku kacayo 7 bilyan oo dollar. Mareykankuna kama hor istaagin heshiisyadaas maadaama ay dowladani dagaal kula jirto waxa ay ugu yeeraan argagixisada. sidoo kale nidaamka Bishaar al-Asad ayaa lagu wadaa in bilaha soo socda uu heshiisyo kala duwan oo dhanka hubka ah la saxiixdo xukuumadda Moscow, taas oo maamulkiisa ka badbaadisay in hadaanta laga tuuro lagana qabsado magaalada caasimadda ah ee Dimashq kadib markii kooxaha mucaaradka ay soo qabsadeen waddanka intiisa kale. xilligaas oo Ruushka uu soo gurmaday al-Asad uuna dagaalka si toos ah u soo galay sanadkii 2015. bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2018 ayay ahayd markii dowladda Ruushka ay nidaamka al-Asad u gacan gelisay gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano S-300 si maamulka Nusayriyada uu u difaacdo hawada waddanka Suuriya. waxaana xusid mudan in Ruushka uusan wax lacago ah ka qaadan maamulka Nusayriyada oo waqtigan la liicliicaya dhaqaale xumo ballaaran maadaama uu ku jiray dagaal qaatay muddo 8 sano ah. Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inuu maamulka Dimashq ka helay fursado maalgashi iyo kuwa kale oo ku aadan dhanka dib u dhiska waddanka iyo soo saarista mawaadka dabiiciga ah, taas beddelkeedana uu siin doono qalab ciidan. faa'iidada ugu weyn ee ugu jirtana ay tahay loolanka uu kula jiro Mareykanka iyo saldhigyada militari ee uu halkaas ka samaystay. dhanka waddanka Masarna, xukuumadda Qaahira oo la daalaa-dhacayso deymaha faraha badan leh ee lagu leeyahay ayaa lagu wadaa in bilaha soo socda ay sii wado qalabaynta ciidankeeda, xilli ciidanka militariga uu gacan bir ah ku hayo maamulka waddanka iyo majaalka dhaqaalaha intaba. dhammaadkii sanadkii tagay ee 2018 ayay dowladda Masar qabatay bandhig weyn oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 373 shirkadood oo ka kala socday ilaa 41 dal, halkaas oo lagu soo bandhigayay qalab ciidan oo kala duwan. waxa ayna heshiisyo la saxiixatay ilaa 15 shirkadood oo ka kala socday wadamada Faransiiska, Shiinaha, Bulgaria, Bosnia, Serbia iyo Mareykanka, sida ku cad bayaan uu soo saaray militariga waddankaas, inkastoo aan la shaacin inta uu leeyahay qarashka ku baxaya heshiisyadaasi. 10 sano ee la soo dhaafay waddanka Masar 5% miisaaniyadda dowladda ayuu ku bixinayay arrimaha militariga, taas oo ka dhigan 4.5 bilyan sanadkiiba. arrinkaas ayaana sanadkii 2017 Masar ka dhigay in kaalinta saddexaad ay ka gasho dowladaha ugu kaydka ballaaran caalamka marka laga soo tago Sacuudiga iyo Hindiya. Mareykanka ayaa hoggaanka u haya dowladaha hubka siiya waddanka Masar, 20% ayaana la sheegayaa inay iminka halkaas u iibgeeyaan, inkastoo wixii ka horreeyay sanadkii 2011 uu 76% qalabka ciidanka Masar ku tiirsanaa dowladda Mareykanka. isku soo wada duub oo sanadka 2019 ayaa la filayaa hoos u dhac ballaaran oo ku aadan qarashaadka ku baxa arrimaha ciidanka marka laga hadlayo wadamada Carabta, taas oo ay sabab u tahay cadaadiska siyaasadeed ee haysta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ahaa kuwa ugu dhaqaalaha badan leh mandiqada uguna iibsiga badan hubka ka yimaada wadamada reer galbeedka.